kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel walba dadweynaha aad ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka maxaa cusub oo idinku soo gudbino hadba wararkii ugu dambeeyay ee dadka caanka ah ee adduunka iyo kuwa Soomaalida waxaan maanta idin soo gudbinaa xalqad ku saabsan xanuunkan sida ba'an adduunka ugu faafay ee coronavirus COVID-19 astaamaha xanuunkan waxaa kamid ah qandho ama xumad saayid ah qufac qalalan madax xanuun xagga bukaanada qaarna lagu arko shuban bukaanada qaar uu cudurkan haleelo balse difaacoodu fiicnaa waxay sheegeen inuu xanuunkani safmar ku ahaa balse gebi ahaanba ay iska waayeen dareemayaasha urinta iyo dhadhanka halkee buu ka yimi xanuunkan waa mid ka mid ah xanuunada ku dhaca fiidmeerta sida la sheegay xayawaan la dhaho bangaliin ay u soo gudbisay fiidmeertu xayawaankaasna bini'aadanka u soo gudbiyay qaabkee ayuu ku gudbaa xanuunkan COVID-19 wuxuu ku gudbaa neefta ama hawada marka qof qaba xanuunkan oo kaa agdhow kugu qufaco ama hindisadiisa kusoo gaadho ama taabato meel uu horta taabtay qof qaba xanuunkan COVID-19 wuxuu awood leeyahay inuu ku noolaan karo meelaha qaar sida caagadaha iyo biraha qaarkood 3 maalmood halka kartoonadana uu ku noolaan karo 20 saacadood ilaa hadda wuxuu ku dhacay xanuunkan in ka badan 685,000 oo qof wuxuuna dilay in ka badan 32,000 waxaana ka bogsaday 146,000 waxaa hadda u jiifa oo xaaladoodu degan tahay 481,000 waxaana xaalad halis ah ku jira in ka badan 25,000 sideed uga badbaadi kartaa xanuunkan haddaba si aad uga badbaaddaa xanuunkan fadlan talooyinkan raac allana tala saaro 1 jooji taabashada wajigaaga gaar ahaan afkaaga sankaaga indhahaaga adoon gacmaaga si fiican ugu dhaqin saabuun iyo biyo 2 jooji booqashooyinka iyo salaan gacan qaadka iyo laabisgelinta ama habisiinta 3 haddaad qufacaysa ama hindhisayso si aanay neeftaadu dad kale u gaarin fadlan isticmaal maro nadiif ah ama Kleenex haddaanad labada midna haysan fadlan isticmaal gacantaada ama laabatada gacantaada 4 Kleenex markaad ku qufacdo ama ku hindhisto fadlan ku tuur meesha loogu talagalay haddaanad haysan Kleenex ama wax maro ahna ood gacmaaga ku hindhisto fadlan ha ku taaban albaabka hana iloobin inaad gacmaaga ku dhaqdid biyo iyo saabuun 5 ka fogow goobaha la iskugu yimaado oo yaree safarada muhiimka ahayn 6 haddaad isku aragto xumad ama qandho qufac qalalan iyo madax xanuun ama hindhiso iyo neefqabatin fadlan la xiriir goobta caafimaad ee kugu dhow 7 ka dheerow qofka ku dhow masaafo aan ka yarin 1 ilaa 2 mitir 8 kor u qaad difaaca jirkaaga adoo isticmaalaya vitamin C iyo khudaarta iyo fruitska qaniga ku ah vitamin C 9 fadlan bixitaanka faraha badan yaree si aad naftaada u badbaadiso iyo ehelkaaga gaar ahaan waalidkaaga waayo dadka waaweyn awood badan uma laha oo ay iskaga difaacaan xanuunkan markaa sabab ha u noqon dhimashadooda iminkana waa fariin ku socota qurba joogta ku nool dalalka ka baxsan dhulweynaha Soomaalida fadlan qurba joog haddaad caafimaad qabta ama xanuunkan aad qarsanayso meeshaada joog oo xanuunka ha u soo qaadin dadkaaga Soomaaliyeed ee masaakiinta ah waayo dadka Soomaalida badanaa ma haystaan adeegyo caafimaad oo wanaagsan dadka caanka ah ee la karantiilay ama ku dhacay xanuunkan COVID-19 waxaa kamid ah dhaxal sugaha boqortooyada Ingiriiska Prince Charles oo markii la baaray laga helay xanuunkan degdegna loo karantiilay halka boqoradda Ingiriiska Elizabeth ay iyadana kansal gareysay dhammaan munaasabadihii ay lahayd ama ay ka qayb galisay iyadoo si degdegna looga saaray qasrigeeda Buckingham iyadoo u wareegtay qasrigeeda Windsor waxaa isna xanuunkan laga helay ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Mr Boris sidoo kale xaaska ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa iyadana laga helay xanuunkan balse hadda way ka sar kacday oo ay bogsatay boqorka iyo boqoradda Norway ayaa iyagana la karantiilay kadib markii ay ka soo noqdeen March bilowgeedii boqosho ay ku tageen boqortooyada Haashimiga ah ee Urdun jilaaga caanka ah ee Tom Hanks iyo xaaskiisa Rita ayaa iyagoo ku sugan Australia xanuunkan haleelay si hadda way ka bogsadeen waxayna ku laabteen dalkoodii Mareykanka jilaaga caanka ah ee Idris Elba iyo xaaskiisa Soomaaliyada ah ee Sabrina Dowre oo iyagana laga helay xanuunkan ayaa ilaa hadda iskarantiilaya oo wali ka bogsan xanuunka si sheegay inuu xanuunkan safmar ku yahay oo aanay dhib weyn kala kulmin maalqabeennada ugu tabarucay macaawino ama taageerista in COVID-19 la helo talaal degdeg ah waxaa kamid ah Bill Gates iyo xaaskiisa Melinda oo ku deeqay $15 milyan maalqabeenka China ee Alibaba ayaa isna ku deeqay $14.4 milyan Rihanna ayaa New York hospitaladeeda qaar kamid ah ugu deeqday lacag dhan $5 milyan
iyo agab ka caawinaya shaqaalaha cisbitaalka dagaalka ay kula jiraan COVID-19. fashion designerka caanka ah ee Talyaaniga u dhashay George Armani ayaa dalkiisa ugu deeqay 1.4 milyan oo dollar. Xiddiga kubadda ee u dhashay Sweden ee Zlatan Ibrahimovic ayaa Talyaaniga ugu tabarucay lacag dhan 109,000 oo euro, isagoo sheegay in hadda la joogo waqtigii uu dalkii xiddiga ka dhigay uu u abaalcelin lahaa. Lady Gaga iyo Justin Bieber ayaa iyaguna lacag ugu tabarucay jamciyad khayri ah oo cunto siiya carruurta saboolka ah. Nancy Ajram ayaa ugu deeqday hay'adda Bisha Cas ee Lubnaan 20,000 oo dollar. Sidoo kale cisbitaalka guud ee Beirut waxay ugu deeqday 20,000 oo ay ku taageerayso, halka Haifa Wahbi iyaduna ay caawisay qoysas danyar ah oo tiradooda lagu qiyaasay 9,000 oo qof. Daawo isbeddelka nolosha ku dhacay ka hor iyo kadib COVID-19. haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe iyo gambalaalka taabo si aanay ku dhaafin muuqaaladan soo gelino. Sidoo kale nagaga xidhno bogaggan ku leenahay baraha bulshada gaar ahaan Facebookga, Instagramka iyo Snapchatka.